Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaaw kanalka Fawarsame. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxyaabihii aan kasoo faa'iiday buugga la yiraahdo Can't Hurt Me oo waxaa qoray nin la yiraahdo David Goggins. Buuggan waxa uu runtii ku saabsan yahay sheekada qoraaga, yacni markii uu yiraa dhacdooyinkii uu la soo kulmay iyo markii uu weynaaday ma aragta sida uu u guuleystay, taasoo annagana baraysa cashar muhiim oo aan nolosheena ku dabaqi karno. Marka ka hor inta aanan ma aragtay u gudagelin faa'iidada buuggan annaga uu noo leeyahay, bal ma aragtay aan idin kormaro sheekada David Goggins. David Goggins waa nin ma aragtay African American ah. Ma aragtay nolol wuxuu kusoo koray ma aragtay aan daryeel lahayn, nolol wuxuu kusoo koray ma aragtay aan la siinin yacni naxariis iyo jacayl aan la siinin. Aabihiis ayaa wuxuu ahaa nin ganacsato ah oo yacni waxa uu lahaa odaygu meel oo ma aragtay lagu cayaaro, kabaha lagu cayaaro, ma ogi wax si Soomaali loogu dhaho, laakiin meel kabaha lagula socdo ma aragtay odaygu lahaa. Halkaas ma aragtay ayuu odaygu mar walba ku mashquulsanaa jiray, qoyskiisana ma uusan daryeeli jirin. Iska dhaafe David isagoo yar ayuu meeshaas shaqaale ka ahaan jiray, hooyadu sidoo kale meesha shaqaale ka ahaan jirtay. Markuu David 6 sano jiray, shaqada uu qaban jiray ayaa waxay inuu daryeelo oo uu kor ka fiiriyo kabaha dadkaani ku cayaaraan, yacni waxaas inuu kala ogaado. 6 sano ma uuna jiraa markaas. Sidoo kale hooyada David waxay sameyn jirtay xafiiska ayay cunto ku karin jirtay, ilmahana meeshaas ayay ku daryeeli jirtay. Xitaa mararka qaar yacni isla meesha ayay seexan jireen, yacni David iyo walaalkiis hurdo fiican ma heli jirin sababtoo ah meesha maanta dhan buuq ayaa ka dhacaya, muusiga ka shidan, dada ma aragtay kaba kula dul ordaya. Noloshaas asoo kusoo koray, odaygu mararka qaar waxa uu sameyn jiray hooyada ayuu garaaci jiray, yacni odayga xaaskiisuu garaaci jiray David hooyadiis. Mararka qaar markuu David maago inuu dhex galo asagaa ma aragtay la garaaci jiray. Marka nolol wuxuu ku noolaa maalin kasta garaac iyo nacayb ah. Iskuulka wuxuu aadi jiray soo korku wada barbararan yahay. Sidaas darteed ma aragtay odaygu ma jeclaan wax qarashada oo uu leeyahay inay ilmihiisa iyo xaaskiisa ay ku baxaan. Maalin dhagax xanuuntay David, hooyada maagta isbitaal u qaad, odaygu wuu ka daba qayliyay, wuxuu yiraahdaa camal jooji uu leeyahay, ana qarash ma rabo inuu iga baxee. Marka odayga noocaas ayaa nolol xun kusoo korsiyay David. Ugu dambeyn David markuu 8 sano gaaray, hooyadiis kis lacag ayay heshay, way ka guurtay odaygii, waxay u guurtay meel kale oo la yiraahdo Indiana. Meesha Indiana dadka jooga waxay ahaayeen dad wada cadaan ah. Davidna wuxuu ahaa nin madow. Halkaas wuxuu kala kulmay nacayb iyo faquuq badan ayuu kala kulmay. Markii dambe waxaa ku dhacday inuu David noqdo dadka hadalka shida. Sidaas darteed waxay u direen iskuulka baahiyaha gaarka ayay u direen. Iskuulkii baahiyaha gaarka intuu joogay yacni waxbarasho fiican muusan helin. Cunug leysi ayuu iska noqday. Ardada kale ayuu koobiyay jiray, imtixaanaadkana wuu baasi jiray. Sidaas darteed maantii dambe David wuxuu rabay inuu ku biiro ciidan oo Mareykanka inuu ku biiro rabay, laakiinse ciidankaas yacni taalantiga yacni waxyaabaha laga rabo muusan lahayn, yacni qof inay lahaato waxbarasho heer sare leh, qof inay taalanti lahaato, qof awoodo gaar ah ayaa ciidankaas laga rabay. Sidaas darteed wuxuu isku dayay yacni David inuu ma aragtay imtixaanka oo la galayo inuu inta ku guuleysto oo ku biiro ma aragtay ciidankaas inuu ku biiro. Imtixaanku waxay ahaayeen waxyaabihii uu soo dhaafay uu soo qashi jiray kaliya ayaa la iska rabaa. Sidaas darteed David wuxuu sameeyay gurigu imaaday, waraaq wuxuu soo qaatay yariis, wuxuu ku qoray wax kasta uu u baahan yahay sida imtixaankaas ugu guuleysto ayuu waraaqda ku qoray. Kadib wuxuu soo sameyn jiray wuxuu sameystay wax la yiraahdo accountability mirror. Muraayada ayuu hor imaanaya, wuxuu naftiisa u sheegayaa waxyaabahan uu qoray inuu qabto. Taas waxay ka saacidi jirtay yacni naftiisa markuu waxaas xasuusiyo inuu ficil uu hore ka sameeyo. David wax kasta uu isku dayay inuu waxyaabihii dib u barto, wuu bartay, imtixaankiina wuu ku baasay. Laakiin markii uu sameynaya training markuu sameynay ayaa waxaa la rabay inuu galo tartan ma aragtay oo dabaal ah. Laakiin David weligiisba ma aragtay bad muusan dhex galinba, barkad muusan galinba weligiis, muusan aqoonba sida loo dabaasho. Sidaas darteed wuu iska dhaafay, waxaana taas ku sii saaciday dhakhtarkiisa yiri cudur qabta asoo waxaas ma aragtay cudur daaradaas asoo sii qaata ayuu iska dhaafay. David markii dambe wuxuu helay shaqo. Shaqada waxay dadka cayaanka buufiya, yacni baranbarada iyo tuqsiyaha iyo dadka buufiya. Sida intuu shaqadaas ku guda jiray oo cayaanka buufinaya, wuxuu helay weight badan ayuu qaaday, yacni culays ayuu qaatay. Nin shuluq ayuu noqday, 100 iyo wuxuu noqday 36 kilogram ayuu noqday.
maantaba soo TV fiirsanaya wuxuu arkay ciidan la tababarayo, ciidanka oo kuwa badda waxaas loo tababarayo. Wuxuu kadib ku fikiray inuu ku biiro, laakiinse dadkaas dad waxay ahaayeen nolol badan rafaad baran maraya. Qof ma aragta 136 kiilahana looguma talagelin. Sidaas darteed uu rabay amaba ay noqotaba inuu dhimo 50 kiilo uu ku dhimo muddo 3 bilood ah. 50 kiilo muddo 3 bilood ah intuu ku dhimi rabay waxa uu qoray wax kasta uu baahan yahay si uu culeyskan iskaga rido. Accountability mirror-kii ayuu haddana ku laabtay. Sidaas darteed maanta shaqada markuu aado wuxuu sameyn jiray sidoo kale wuu ordi jiray, baaskiil ayuu wadi jiray, mararka qaar gym ayuu ka qayb gali jiray. Maalinta David waxay bilaabi jirtay 10 saac iyo bar subaxnimo ayay bilaabi jirtay ilaa habeenkii oo dhan. Intuu shaqeynaya inta kale waxay ahayd mar uu ordayay, mar uu baaskiil waday iyo mar uu meel gym aadayo. 3 bilood gudahooda wuu ku dhimay 50 kiilo. Meeshii wuu ka qayb galay wuuna ku guuleystay. Wuxuu ka mid noqday 30 qof oo laga soo doortay 120 qofood laga soo doortay. Sidaas darteed meesha dadka jooga dad waxay ahaayeen mararka qaar adag, laakiin David wuu ka soo gudbay. Xitaa dadkii ayuu maskaxdooda gatay oo ma aragtay uu saameeyay, dadkii yaaba jeclaadeen. Ugu dambeynna wuxuu ku biiray dadka ma aragtay meeshii dadka shaqaalaysiiyo oo meeshaas jooga ayuu ku biiray. Wuxuu bilaabay dadka kale oo Afrikaanka kale Ameerikaanka inuu ku dhiirigeliyo inay soo aadaan shaqadan tababaradan ay sameeyaan. David markii dambe wuxuu hormariyay fagaara hadalkiisa ayuu hormariyay, xirfadda shaqaalaysiinta ayuu hormariyay, xirfadiisa orodka wuu sii hormariyay. Sidoo kale David wuxuu ku guuleystay record marathon oo pull up ah oo biro saasta loo qabto kor loogu kackacayo. Recordkaas ayuu jabshay. Marka ninku wuxuu ahaa ninkii markii koowaad eberka ahaa qoyska noocaas ka yimaaday, haddana ma aragta sidaa noqday. David waxa uu leeyahay guusha maanta aan joogo iyo nolosha aan haysta kamaanan helin qoys qurux badan, aabi hooyo i taageeraya environment i taageeraysa, laakiin waxaas oo dhan waxaan ka helay is-edbinteeda iyo is-xakameynteeda nafteeda inaan horay u riixay. Sidoo kale waxa uu leeyahay xanuun kasta iyo dhibaato kasta ma aragta siday rabaanba ha u jiraan maalin way iska dhamaanayaan. Marka waxaa jira David intuu qorayay challenge uu hadba dhahaya challenge-gan sameey, waxyaabahan sameey. Anna waxaan jeclaystay challenge-gaas inaan idinla wadaago. Challenge-ga koowaad waxa ay tahay horta inaad buug soo qaadatid, aad qortid wax kasto maanta gadaal ku celinaya, wax kasto ma aragta dhibaato ku wax kasto cudurdaar kugu challenge-ga labaad ayaa waxa ay tahay inaad accountability mirror sameysato oo muraayada horteeda inta tagto aad naftaada xasuusiso inaad ficil sameyso, naftaada xasuusiso waxyaabahan waraaqda ku qoran oo ku hor yaala inaad wax uun ka xaliso. Challenge-ga saddexaad ayaa wuxuu yahay comfort zone-kaaga inaad ka soo baxdo meesha aad joogto oo aad la qabsatay inaad meeshaas ka soo baxdo oo wax aad sameyso duwan. Tusaale ahaan gurigaaga dadka joogo waa comfort zone-kaaga, ma jimicsi ma sameyn, waxba ma sameyn, inaad dadkaas ka dhex baxdo oo isku daydo ugu yaraan maanta inaad banaanka aado oo wax ayaga ay sameeyaan wax ka duwan aad sameyso. Waxaas haba yaraadaan, dhib haba kugu ahaadaan mararka qaar. Challenge-ga afaraad ayaa waxa uu yahay asaguna dadka ka sareeya macallin ha noqdo ama boss ha noqdo, wax walba ay ku weydiinayaan ay ku dhahan samee inaad sameyso wax walbana sida ay u rabaan inaad u sameyso. Inaad tusto qofka aad tahay, inaad tusto qofka ay ka filanayaan qofka badan inaad tahay, inaad tusto karti badan inaad leedahay sida David uu sameeyo kala soo mar walba dadkaas ka sareeya sida ay wax u rabaan inaad adiguna sameysato. Challenge-ga shanaad ayaa waxa uu yahay inta aad diirad saari lahayd waxyaabaha aadan wax ka bedeli karin inaad diirada saarto waxyaabaha aad wax ka bedeli karto, inaad isku daydo inaad iska hor wareejiso caqabadaha aad wax ka bedeli karto, caqabadaha yararka ee aad saameynta ku yeelan karto. Markasta oo aad rabto inaad caqabad wanaagsan mar walba aad rabto inaad caqabad iska hor wareejisana waa inaad u diyaar garowdaa inaad caqabado kale aad la kulmayso, waa inaad u diyaar garowdaa sidaad u noqon lahayd qof adag oo dhibaatooyinka ama ma aragta warbixinada foosha xun dadka kaaga imaana inaad u qaadan karto. Challenge-ga lixaad oo aad sameynayso ayaa waxa uu yahay inaadan iloobin waraaqdii iyo buugii qalinka inaadan iloobin oo mar walba aad qorto waxyaabaha aad ku soo guuleysatay iyo qaabka aad ugu soo guuleysatay. Sababtu maxay tahay markaad aragto wax aad ku soo guuleysatay waxaad aaminaysaa inaad wax kale ku guuleysan karto. Taasi shidaal ayay waxay kuu noqonaysaa inaad mar kale isku daydo inaad tilaabo kala qaado. Challenge-ga toddobaad ayaa waxa uu yahay waxyaabaha madaxaada ka guuxaya inaad adigu noqoto mid maamula
yacni amarada maskaxdaada ka baxaya inaad adigu noqoto mid bixiya. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad isdhahayso waxaas ma awoodid, waxaas ma samayn kartid, laakiinse waxaas waad bedeli kartaa, waadna ku bedeli kartaa waxaas inaad samayn karto iyo waxaas inaad awoodo. Marka isku day madaxaaga inaad hamato, yacni hanata fikradahaaga inaad adigu lahaato. Marka intaas ayay ahayd waxa buuggan ku saabsan. Waa rajeynaa sheekada David inaad ma aragtay fahantay, sidoo kale challengeska uu na siiyana waan rajeynaa inaad ayagana aad fahantay. Intaasna ayaa cashir noogu filan. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.